bal xabad baa socoto waxa ka socotaa bal Cumar lug yar ku hoosano waxa la dhahaa farjano bal Cumar marka way faan dhaafeen way ka horeeyaan shownimadkii kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada kalmo weynay sidoo kale wararkii ugu dambeeyay sida fardhaca ku maqleyseenba deegaanka Bali Cumar ee ka tirsan gobolka Sanaag oo aan ka fogeyn deegaanka Boqorkeyn iyo sidoo kale oo ay ku kala sugan yihiin ciidamada difaaca dowladda waqooyi bari Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada maamulka gooni goosadka ah ee Somaliland ayaa waxaa la soo warinayaa in maleeshiyad ka soo jeeda beeraha markaasi maamulka waqooyi galbeed Soomaaliya ay weerar ku soo qaadeen dad shacab ah oo xoolo dhaqato ah isla markaana xoolo ay ka dhaceen halkaana ay ka dhacday shaqaaqay sidoo kale kooribaadkooda waxaan kula wadaagi doonaa macluumaadkii ugu dambeeyay guud ahaan deegaanka Bali Cumar wixii ka dhacay inta tabintan aynu ku guda jirno waxaan sidoo kale kula wadaagi doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee waqtigiisa uu dhamaaday Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay xaalado markaasi ku saabsan dagaaladii ka dhacay Muqdisho iyo qorshaha uga degan mucaaradka isaga oo degniin adag u diray xubnaha mucaaradka ee golaha mustaqbalka Soomaaliya sidoo kale madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni ayaa lagu soo waramayaa in uu bilaabay aruurinta iyo sidoo kale musaafiriinta dhalinyaro ka soo jeeda deegaanka Soomaalida ama Soomaali galbeed si gaar ah dhalinyaro markaasi ka soo jeeda mid ka mid ah bilaha halkaasi dega ayaa maamulka Siciid Cabdullaahi Deni lagu eedeynayaa inuu beed ku bilaabay ku dhawaad 62 dhalinyaro ayaa lagu soo waramayaa inay xabsiyada ugu jiraan ugu kalena deegaanka milxo ee gobolka Sanaag ay kacadiye kula kulmayaan qodobadaas ayaan dul istaagi doonaa soo dhawow muuqaalka like saar aragtidaada qaybta faallada ee commentiga ku dhiibo dhinaca kale maamulka waqooyi bari Soomaaliya waxaa ka dhex taagan mas'uuliyiinta maamulkaasi khilaaf aad u xoog waxaana khilaafkan u dhexeeya madaxdaas talada hayse ee ugu horeeya firdhiyey sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaanada waan kula wadaagi doonaa khilaafkaas iyo waxa uu salka ku hayo aragtidaada ayaad nala wadaagi doontaa cidda markaasi iska leh khaladka iyo sidoo kale mas'uuliyadda khilaafkaasi ka dhex taagan soo dhawow muuqaalka like gare waa ilmaaminaa sheer gareysa haddii aad horey noola joogtay waad ku mahadsan tahay haddii aad nala joogina nagu soo biro hadda ka mid noqo saaxiibada halkan ku xiran hagaag aynu ku hormarno marka hore madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee waqtigiisa uu dhamaaday Xasan Sheekh Maxamuud oo wareysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya sidoo kalena uu kaga hadlay arrimaha aqoonsiga Somaliland ayaa waxa uu markaasi si qoto dheer uga hadlay isaga iyo sidoo kale xubnaha golaha mustaqbalka dagaalka siyaasadeed ee khilaafka kan madaxweynaha waxa uu sheegay inaan marnaba la aqbalaynin in mucaarad hubaysan Muqdisho qaybo ka mid ah ay degaan waxaana uu yidhi gacan biraha ayaa lagu qaban doonaa waana laga hortegi doonaa ayuu yidhi dalka doorasho ayuu aaday wadahadal waan ogolnahay laakiin ma doonayna ayuu yidhi cid hubaysan in aan marnaba gorgortan kala galno arrimaha masiirka dalka ayuu yidhi haddii cid hubaysan aan gorgortan la galayna ayuu yidhi dad badan ayaan markaasi kala gorgortami lahayn arrimaha Soomaaliya oo xilliganba Soomaaliya xaalkeedu sidan ma ahaadeen ayuu yidhi qori sidiisaba xal ma ahan waxaana loo ogol yahay cid kasta oo dowladda ka aragti duwan inay miiska wadahadalka tagaan halkaana lagu heshiiyo haddaba adiga bal aragtidaada madaxweynaha ma yahay qof wadahadal iyo sidoo kale heshiis diyaar u ah mise waxa uu doonayaa inuu xoog dalka ku sii joogo arrimaha Somaliland maruu ka hadlayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu yidhi Somaliland marnaba aysan aqoonsi helin cidda sheegaysa in Somaliland ay aqoonsatayna iyaga xitaa ay dhowr jeer la soo xiriirtay laakiin ay diideen qadiyada masiiri ah awgeedna ay u diideen waxa uu yidhi Somaliland laba option oo kaliya ayaa ka furan waa midka koowaad in wadahadal lagu dhameeyo khilaafka iyo sidoo kale kala aragti duwanaanshaha keenay in ay ku dhawaaqaan inay ka go'ayaan Soomaaliya qodobka ama markaasi aragtida labaadna waa in awood military lagu muquuniyo waxa uu yidhi waxay noqdeen fallaaga dalka kala goynaysa waxa kaliya ee furan waa in awood military loo isticmaalayo wadahadal awood military hadda qorshaha noogama jirto ayuu yidhi laakiin haddii laga fursan waayo mustaqbalka innaga oo cid kasta kaashanayna waxaan qaadi doonaa ayuu yidhi tallaabooyinka lagama maarmaanka haddaba madaxweyne xasan ma wuxuu u gol xaaranayaa in awood military uu ku wajaho maamulka Somaliland gacantana uu ku soo xiliyo aragtidaada qaybta faallada nagula wadaag markana dhinacaasi maamulka waqooyi bari Soomaaliya maamulka waqooyi bari Soomaaliya gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo Bali Cumar waxaa ka dhacay iskoorimaad iyo sidoo kale dagaal u dhexeeya maleeshiyaad ka soo jeeda dhinaca maamulka Somaliland iyo sidoo kale ciidanka difaaca deegaanka ama kuwa dowlad goboleedka waqooyi bari Soomaaliya dagaalkan waxa uu markaasi daba socday kadib markii maleeshiyaad dhinaca Somaliland ka yimid ay weerar ku qaadeen deegaankaasi dad reer miyi ah oo ku sugnaa xoolana ay ka dhaceen ciidanka ammaanka waqooyi bari Soomaaliya oo xogtaasi helay ayaa ku baxay isla markaana si adag uga jawaabay laakiin waxay sheegeen in maleeshiyaadkii ay baxsadeen qaar ka mid ah dadkii goobjoogayaasha ahaa oo arrinkaas ka hadlaya
ayaa waxay sheegeen in dhacdadaasi ahayd fal isku day ah oo maleeshiyada dhinaca somalilan ka soo duulay ay doonayeen inay deegaanka ku carqaladayaan. Waa kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlayay sidoo kale deegaanka Bali Cumar wixii ka dhacay. halihiiba iyagoo sii waday gaadheen dumarka iyo wiilashana meesha tagnaayeen rasaas bad huwiyeen islaanta dhimanaysa kuwaa ku gabaday oo dhufaas ka dhigtayba islaanta dhimanaysa kuwaa ku gabaday annaga waa soo tagnay mise waxaan u nabadeen nimankii oo kabihii oo islaanta ma waxa laga rag baa ku saari oo ma soo taagtay ha islaanta nimanbaa ku gabaday dhufaas ka dhigtay laftiisa dhimanaysa marka oo meesha islaanta aadhiba la joogtay iyo ciyaalku meeshoo jiid maaha waa calooshooda meesha dhaa Baleero Cumar xagga oog ba ka xigtaa weliba Baleero Cumar waxaa kaa qabanaysaa xagga hawto kale boqorkeena warkeeda daaba anaaba ka dhaaminaya markaa joogay markii xabad baa socotaa aan soo dhaqaaqnay waa waxba gaari weyn nimankii afartii wiil baa naga hor yimaadeen iyagoo soconayo waxba qabin walba war khayr haye maxaan ku dhacay war waxaanu 15 nin baa halka laba haal la sii ordayo rasaas fan dabada qabanayo qashar naguma soo ridin haye dee dumarra ilaa taa dhimanaysa maahana 5 kale dumar meesha dumarkii markaa waxay dhaanoo dumar bay naga hoos galeen gabadha dhimanaysa xitaa iyagu dilaa war looma hayo ilmaada reeyaan dad marka haween dumarka raggi baa ku hoos dhuuntamiya saasay dumarka tafooda galaya sidee caarkiina iyo maatidana u gaban kartaa habar jeclay war wixii dhibaato ku dhacday dagaal la soo maray maanta ma waxa keentay intaad hablihiina gordo intaad gashid ina marka xabad qaatay aad mudaatay waa la dilay baaba'ayay iyo dhulbaanta habar dilay habraa ka soo dhaxba oo maatada iyo caarka difaaco naagu dhala tiktok ha ka ooyini kaala boqorkeen waa jiida kaala maxaa Baleero Cumar xagga ka mariyay hadda habraaga iyo maatada dhex gashina taasoo ku leefsanaya aan nafan ku haya mid kale ku soo caarta difaacan kar waa iyo maatada soo barta ugu dambeysay waynu ka dagaalamo waa xeer taabad waa meesha nin ka dagaalamo caarka iyo maatada hadii wax ka gaaraan ninku waxa ma reebto ima riyaal meesha hadda albaabka iyo baroor habar baan la ka diray dhulbaanta ruux tagay habar bay dileen habarta 15 nin baa ka cararay saddex iyada dhashay wiilasheeda ahaayeen midna dibashigad buu ahaa midna sadegeed buu ahaa haye habarta xaqeedii habar jeclay wala kulay iska ahaato waxa markana isla maamulka waqooyi bari Soomaaliya waxa maalmihii ugu dambeeyay si weyn baraha bulshada u qabsaday khilaaf siyaasadeed oo aad u xoogan oo soo kala dhaxgalay xubnaha ugu sarreeya maamulka waqooyi bari Soomaaliya ee madaxda dalka maamulka waqooyi bari Soomaaliya ugu horeeya madaxweyne Firdhiye sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaan Fahime Yuusuf Qujee sidoo kale madaxda markaasi maamulka waqooyi bari Soomaaliya oo Firdhiye ugu horeeya ayaa waxa barihii dambe ay noqdeen kuwo si weyn warbaahinta hadalla markaasi xanaf la isugu marinayay. Fahime Yuusuf Qujee oo si weyn markaasi qayb uga ah ololihii lagu doortay Cabdiqaadir Firdhiye ayaa maalmihii ugu dambeeyay noqotay tooshka kaliya ee markaasi indhaha ka haya Cabdiqaadir Firdhiye si weyn markaasi dagaalka warbaahinta ula dhashay. Fahime Qujee waxay sheegtay in la joogo waqtiga laga wada hadli lahaa maxaabiista lana soo dayn lahaa maxaabiista ku xiran magaalada Hargeysa ee gacanta ugu jira maamulka Booliis Goosadka si la mid ahna la sii dayn lahaa maxaabiista iyaga ay gacanta ku hayaan. Isnaafsiga maxaabiista ayay sheegtay inay tahay mid muqadas ah waa laga maarmaan ay markaasi ku tilmaantay waxaana sheegtay cidda hortaagan inay tahay shakhsiyaadka uu Firdhiye ugu horeeya waxayna sheegtay in macaash dhaqaale ay ka sameeyaan arrinta laakiin warar soo baxaya ayaa sheegaya in loogu hanjabay la xiri doono islamarkaana xasaanadeeda aan lagu tixgelin. khilaafka ayaa u muuqda inuu cirkaas ku sii shareeraya marba marka ka dambeysa waxaana hadallada isku adeegsanayaan ay noqdeen kuwo markaasi warbaahinta si weyn haddaba yaad is leedahay mas-uuliyadda khilaafkan sabab ayuu u yahay ma Firdhiye iyo tiimkiisa ayaa iska leh mise xildhibaan Fahime Qujee xildhibaanada sida weyn u diidan si haynta maxaabiista iyo isweydaarsiga maxaabiista doonaya ayaa khaladka yaa kale khaladka khilaafka dhinacyadan markana dhinacaas iyo maamulka Puntland wararka naga soo gaaraya deegaanka Milxo waxay sheegayaan in maamulkaasi uu Siciid Cabdullaahi Deni hogaamiyaha u yahay uu xabsiga u taxaabay ku dhawaad 62 dhalinyaro ka soo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida. Haddaba dhalinyaradan ayaa la sheegay inay ahaayeen kuwo ka shaqaysanaya deegaanka Milxo qodayana macdanta iyo sidoo kale dahabka halkaasi laga qodo. Waxaa la soo warinayaa qaar ka mid ah dhalinyarada la weeraray dhaawacyada ay yihiin deegaanka Milxo
ay markaasi duruufo adag oo caafimaad ay ku wajahayaan dadka 60 iyo labada kalena xabsiyada ay ku jiraan waxaana la tilmaamay maamulka Siciid Dani uu doonay inuu u gudbiyo Itoobiya isagoo dhaqaale markaasi kaga bedelanaya haddaba Puntland maaha markii ugu horreysay oo lagu eedeeyo ka ganacsiga dhalinyarada ka soo jeeda deegaanka Soomaalida iyada oo markaasi ku eedeynaysa inay ka tirsan yihiin haddaba aragtidaada qaybta faallada ee komitiga nagula wadaag maxaa ka runa hadalkaasi maamulka Siciid Dani suuragal ma tahay in falka noocaasi ah uu ku dhaqaaqo maxaa la gudboon dhalinyarada deegaanka ma inay gebi ahaanba iska daayaan aaditaanka iyo sidoo kale u safrida deegaanada sida maamulka Puntland tacdiyada ay kala kulmayaan qaybta faallada nagula wadaag aragtidaada haddii aad dhamaysatay warbixintana ilmaamin inaad muuqaalka la garayso aad sii sheergarayso haddii aad horey noola joogto ku mahadsanta haddii aad nala joogina nagu soo biir oo ka mid noqon saaxiibada aynu halkan mar kasta kula wadaagno wararka iyo warbixinada guud ahaan Soomaalida iyo caalamka